Ramzi waxa uu ku soo laabtay waddankiisa muddo badan markii uu ka maqnaa kadib. Inta uu maqnaa ayaa waxa uu soo shaqaystay lacag fara badan. Markii uu yimidna waxa uu guursaday gabar qaraabadiisa ah. Waxa uu ka sugayay in ay u dhasho wiilal iyo gabdho oo uu la cayaaro sida walaalkiisa faqiirka ah oo kale, kaasoo ay u joogaan 3 carruur ah. Laakiin muddo 4 sano ah ayaa laga joogaa, welina naagtiisa carruur uma aysan dhalin. Ramzi aad ayuu u murugooday. Maalin maalmaha Ramadaanka ka mid ah ayaa waxaa soo wacay walaalkiisa faqiirka ahaa, wuxuuna u sheegay mid ka mid a wiilashiisa in uu xanuunsan yahay, qaliinna uu mari doono. Waxa uu weydiistay lacag, laakiin Ramzi ma uusan danayn arrintan. Kadib salaada casar markii uu ku tukaday masjidka, ka hor inta uusan imaamku jeedin darsigiisa maalinlaha ahaa, ayaa imaamku waxa uu ka codsaday wiil taqi ah in uu timir u wada qaybiyo dadka. Wiilkii waxa uu yidhi, ma waxaan ugu qaybiyaa qaybintii dadka ama qaybintii Alle? Imaamkii waxa uu yidhi, qaybintii dadka ugu qaybi. Wiilkii waxa uu soo qaaday saxankii timirta ahaa. Dadka meesha joogay ayuu mid walba si siman u siiyey 3 xabbo oo timir ah. Timirta inta soo hartayna waxa uu dhigay imaamka hortiisa. Kadib Ramzi waxa uu imaamka ka codsaday in uu wiilka timirta u qaybiyo qaybintii Alle. Imaamka wiilka ayuu ka dalbaday in uu qaybiyo timirta una qaybiyo qaybintii Alle. Wiilka waxa uu bilaabay in uu mar kale qaybiyo timirta, laakiin markaan qof ayuu siiyey 1 xabbo, qofna wuxuu siiyey sacab buuxa, qof kale faraqa ayuu u buuxiyey, mid kalena waxba ma uusan siin. Imaamka markii uu arkay yaabka ka muuqda Ramzi ayuu casharka bilaabay, wuxuuna yidhi, wiilkan waxa uu ina barayaa in Allah subxaanahu wa tacaala shay walba uu u sameeyey xikmad. Dadkana waa kuwo kala duwan. Dadka oo dhan haddii hanti la wada siiyo, nicmada hantida wax qiimo ah ma yeelanayso. Caafimaad haddii la wada siiyana, caafimaadka wax qiimo ah ma yeelanayo. Haddii dadka oo dhan la wada siiyo carruur ama cilmi, siismadu wax qiimo ah ma yeelanayso. Sirta noloshu waa in dadku iyagu isdhammaystiraan. Allah subxaanahu wa tacaala shay walba xikmad ayuu ka leeyahay, taasoo aynan ku ogaan karin caqligeena gaaban. Allah subxaanahu wa tacaala markii uu qof siiyo hanti, caafimaad, carruur iyo cilmi, siismadaas xikmad ayuu ka leeyahay. Markii uu qof kale u diidana, diidmadaas xikmad ayuu ka leeyahay. Marka waxaa loo baahan yahay in aan sidaa nolosha u aqbalno. Ilaah waa caadil, cadaalad ayuuna wax ku qaybiyey. Qofkii la siiyo hanti ama caafimaad ama carruur, ma ogaan karno nicmadaas beddelkeeda waxa asaga ka maqan oo aan la siin. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi, ku qanac qaybta uu Alle ku siiyey, waxaad noqonaysaa dadka midka ugu tanaadsan. Kadib Ramzi waa uu iska ooyey, Ilaahay ayuuna u laabtay, wuxuuna yidhi, Rabbiyow, qaybintaada waan ku qanacsanahay. Kadib guriga ayuu u soo laabtay. Waxa uu soo qaaday lacag. Waxa uu u yimid walaalkiisa, hab ayuu siiyey. Waxa uuna ka dalbaday in uu iska cafiyo, maadaama uu ka gaabiyey. Cunugii markii uu caafimaaday, Ramzina uu faraxsan yahay, ayaa naagtiisa waxa ay u sheegtay in ay uur leedahay. Waa uu ku farxay, Allah ayuuna u sujuuday, asagoo uga mahadcelinaya nicmadan. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalkan Tarjumaad, subscribe saar, gambaleelkana riix si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ee aan soo gelino.